deegaanka haddii xabad nolol lala dhacay waxaan u qaban karay waxay ahayd inay iscasilo weliba anu gaar ahaan waxaan ina axmed harti oo tiin la ah 66 ka xildhibaan anagu labadii kale oo gabtaada ee magaalada kuma aan lahayn aniga oo ah xogeyaha degmada dhaar ee gobolka Highland ee maanta iscasilay waxaan fariin halka uga dirayaa madaxweynaha SSC Khaatumo Firdhiye xogayo ku soo dhawow warbaahinta ka Somali TV waan kaaga mahadcelinaynaa sida qurux badan aad nooga qaabisho kaaga mahadcelinaynaa waxa la sheegay inaad iska caashishay xilkii xogaynimada aad Puntland uga haysay degmada Dhahar maxaa sababay arintaas sababta waxa sababay abur dadku ay arinta dadka deegaanka haddii xabad nolol lala dhacay waxaan u qaban karay waxay ahayd inay iscasilo kaliya oo dareenka la qaybsado waa qodobka labaadna waxa weeye kalgalka siyaasiga ah ee Soomaaliya sanad ka urtay in aan sida ugu wanaagsan uga faa'iideeyo dadka deegaanka gaar ahaan dadka reer Sanaag maadaama hadda qabiil tirtahay gobolka Sool صح marka adiga ma cadaadis xagga bulshada kaaga yimi ama xagga dawladda bas xagga cadaadiska dhinaca kaaga yimi saaxib cadaadisku wuxuu ka yimi iskeedaba haddii daad ku soo qaato oo aad waxa weeye mooska fariisato daadku waa ku qaadaya ma galat صح daadku waa ku qaadaya marka waxa sidii waba dadkan qodobkaas waa qodob waxaana kiciyada cartaas waxay tahay maamulka Puntland inuu ka tirsanay waxa weeye meeshii loo waday waa Soomaali in la dhiso iyaduna isdhisno dad carta kicisay cadaadisku halkaas ka yimid dawladda oo dadka kiciyay iyo tabashay qabeen dadkani oo intii Puntland ay gaari u ahaayeen iyo qodobka labaad oo ah inay Soomaalidu waa ogtahay way isku daydaan ay u maqaltaayaan dhismaha SSC Khaatumo صح oo ogtahay hadda saamil siyaasadeed ay joogto okay hadda waxa la sheegayaa SSC Khaatumo aad ku sugan tahay adigu marka hadda ku sugnaay marka SSC Khaatumo hadda marka ku sugan tahay miyaa la oran karin gudoomiyaha xogayuhu yani awal buu xagga joogayo horu awal uu si tagayo yani awal baan xolkan wuxuu saas oo ka rabino meeshiisu sii joogay miyaa la oran karin ma saaxiibtaas lama oran karo waxaan loo oran kareynin hawshan awal bay jiday oo uu keedsanayd macnaha inaan SSC Khaatumo anagu reer Sanaaga inaan isdhisno iyagana wax la dhisano laakiin lama oran karo cadaadis iyo cid la soo xiriirtay oo tirikaalay waa arintan oo noo imo ma jirin bas aniga ka ahaan way igu jirtay inaan ano Sanaaga oo sanaqaybsigii isku sagaalboqosagaashan Puntland lagu dhisay aan ku dhaxlumay inaan maanta si fiican uga faa'iideeyo oo juqraafikal wax koo dhisto beelahaas SSC Khaatumo diga ee nuubaanta la marwalka yahay iyo beelaha Axmed Harti maxamuud Harti oo Sanaag diga weliba anu gaar ahaan waxaan ina Axmed Harti oo tiin la ah 66 ka xildhibaan anagu labadii kale oo gabtaada ee magaalada kuma aan lahayn marka maanta aan la filahay xagga saqaafada aqoonta ilbaxnimada aan ku dhex duufay siyaasadda isdiidan iyo damaca qabiilka inaan maamulka la xisaabtamo miiskana wax ku wada qaybsano xoogay aad baa mahadsan tahay bulshada dadka deegaanka hadda maxaa xal ah xalkooda muxuu yahay bulshada hal xal weeye waa hal xal bas bulshada waa bulsho Puntland waa bulsho Soomaaliyeed waxa la rabaa waa bulsho raba in SSC Khaatumo wax la dhigto Puntland haayeen waxa la rabaa xalka kooda waxay tahay dadka hadda islaynaya oo tuutaasi Puntland iyo maakhira inay dadka horta qoriga kala dhex baxaan waa qodobka labaadna dad isma ah oo aan siyaasadda ku milmin inay ummadda dhexdhexaadiyaan صح shacabkuna inay inta dhimatay wayna ka dhinteen qubuurta aanay badin waxba tirimayso qabiil ka xoog weyn mid ka yar laakiin qubuurta ha badinina shacabkuna haystajiyeen intaas aan u dirayaa waliba waxaan leeyahay Sayd Cabdullaahi Deni iyo qolada talmaakhiriinta war dadka ha ku ciyaarinina waqti dibaha liminina ummaddu waa ummad isu dhalata kaliya dadka u kaasha alqada wal qadar way dhacday laakiin inta aan ku ekaato ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay inta ku ekayo waxaan kaloo halka kaga faa'iideysanayaa haday ogolaatid fariin aan u diraayo SSC Khaatumo way
aniga oo ah xogeyaha degmada Dhaar gobolka Highland ee maanta asilay waxaan fariin halka uga dirayaa madaxweynaha SSC Khaatumo Firdhiye waxaa leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay marka koowaad waxaa ku mahadsan tahay waxa lagu dhiibay deegaan dagaal ka soo kabtay meel fiican baa maanta ku fudhay bas waxaan leeyahay dacarta qabaa'ilka iyo damaca qabaa'ilka ha ku dhisi waliba gaar ahaan beesha Axmed Harti oo tabasho qabtay oo Puntland ka qabtay maanta hadday Puntland SSC Khaatumo ee laad ku dhufato beefi waa ku meertaal maamulkuna maamuladii adigu Soomaaliland ku diiday oo Puntland ku diiday waxa ku diiday baa maanta wadadeeda haysa markaan u fursho labada beelood ee sanaagdeega ku hirdamaya oo aad u xageynaysid beesha Maxamed Harti marka waxaan ku leeyahay madaxweyne hawsha u fiirso dadkaada oo ah waxa weeye ummadu juqraafikada wax inoo ku dhisa oo sida juqraafikada wax inoo ku dhisa wasaas ma leeyahay waa maasan tahay waxa sheegtay xogaha tabashooyin baad sheegtay ay dadka deegaanka iyo beeshu ay ka tirsanayso Puntland marka hadii ay Puntland xalki keento oo ay diyaar la noqoto inay tabashooyinkii bulshada ay fuliso yani mowqifkiinu goorta muxuu noqonayaa saaxib waqtigaasi waa waqti tagay oo dadkii si u soo noqdaan baabayar ma garat way sababtoo ah isbedel siyaasi ah yimi ma garat صح Puntland kuma aan tagaynay hadda SSC Khaatumo wax isku fahmno wax la qaybsado Puntland dib loo eegayo markaas waxa imaanaya in dib Puntland loo fiiriyo oo markaas meesha aan kaga haboonahay aan ka soo galo balse hadda dadku meesha u socdaan Puntland ma SSC Khaatumo inay wax la dhistaan SSC waxay rabtaa inay reersana wax la dhiso kaliya waxay tahay guud ahaan fariintan diraayo warjidbayaan wax lagu dhisin ee juqraafikali iyo deegaan ama ma xaqiilayo ra'yihay oo Maxamed Harti ah aniga ma xaqiilayaan duubaantana ma xaqiilayo fiqishina ma xaqiilayo Soomaalida kale ma xaqiilayo laakiin waxaan rabaa ka aqoon ahaan qabiilka markan ka basulaad juqraafikali wax inoo ku dhisa iyo si dadku degan yihiin meesha way xogay aad buu maasan tahay waa sidee hadda bulshadii xaalkeed degmada Dhaar hadda xaalkeeda xagee u maraya hadda inta soo ceshin baan kala hadlayay kaliya maatadii baa ka baaliyahayo u baxaysa guryaha ku jira maadaama ay dad nabdeed ahaayeen oo maanta mushkiladaas u timi